wiil dhalinyaro ayaa xabada beeda madaxa kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Australia oo lagu magacaabo Senator Fraser Annan kaasoo ku guda jiray shir jaraa'id oo si jees iyo ku digasho uga hadlayay muslimiintii badneed ee shalay lagu dilay masjid ku yaala waddanka New Zealand. ninkan xildhibaanka oo ka mid ah dadka cunsuriyiinta ah ee muslim nacaybku madax maray ayaa shirkiisa jaraa'id ee uu qabtay isla maalintii shalay ee Jimcaha ahayd waxa uu ku sheegay kuna dooday in bulshada muslimiintu yihiin dad qaxoonti ah oo dambiyo badan geysta isla markaasna fuliyo weerar argagixiso isagoo xusay in weerarkii shalay lagu qaaday masjid ku yaala New Zealand uu ahaa mid ka dhashay sida uu hadalka u dhigay dambiyada ay dadka muslimiinta ahi fuliyaan oo abaalkooda lagu marinayo. hase yeeshee xildhibaankan cunsuriga ah oo ku dhex jira hadalkiisan xambaarsan cunsuriyadda iyo islaam nacaybka ayaa waxaa si kalisaa u soo ag istaagay wiil dhalinyaro ah oo la sheegay inay da'diisu tahay 17 jir kaasoo xabad beeda madaxa kaga burburiyey waxaanu falkaasi sababay inuu xildhibaanku joojiyo hadalkiisa kadibna uu 2 jeer madaxa ka feedhay wiilkii yara waxaana markiiba ninkan xildhibaanka oo aad u cadhaysan qabtay rag meesha joogay oo u muuqday inay ka tirsan yihiin ciidanka ilaalada ammaanka dalka Australia kuwaasoo ka hortagay inuu waxyeello gaadhsiiyo wiilka yar ee beedka ku dhuftay. hadalkan ka soo baxay ninkan xildhibaanka ah ayaa si weyn looga cambaareeyay gudaha dalka Australia iyo meelo badan oo caalamka ah iyadoo ra'iisul wasaaraha Australia Master Scott Morrison oo saxaafadda la hadlay Sabtidii maanta uu ku dhawaaqay inay mooshin ka dhan ah ninkan xildhibaanka ah u gudbin doono baarlamaanka dalkiisa si looga qaado tallaabada ku habboon iyadoo ra'iisul wasaaruhu sheegay inuu hadalkan ka soo yeedhay xildhibaanku uu yahay mid ka baxsan anshaxa loona dulqaadan doonin in qof muwaadin shicib ah hadalkaas oo kale uu ku hadlo iska dhaaf mas'uul qaran oo xubin ka ah baarlamaanka Australia. geesta kale ciidanka booliska ayaa sheegay in wiilka dhalinyarada ah oo la xidhay markii uu beedka ku dhuftay ninka xildhibaanka ah hadda uu dib u helay xorriyadiisa iyadoo aan wax dambi ah lagu soo oogin waxaana muuqatay in wiilkan yari oo shacbiyad badan kasbaday kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalka laga duubay markii uu beedka ku dhuftay xildhibaanka cunsuriga waxaa baraha bulshada si xoogan lagu faafiyay qoraallo lagu ammaanayo wiilka yar laguna sifeeyay inuu yahay geesi daayar oo u hiiliyay bini'aadanimada iyo isdhexgalka bulshooyinka caalamka waxaana baraha bulshada laga sameeyey bogog dhaqaale loogu ururinayo wiilkaas yar si lacagtaas uu iskaga difaaco haddii wax dambi ah lagu soo ogo sidoo kalena uu ku iibsado beedad badan. maxamed xasan daacad, Saab TV.